kolonyadan gaadiidka oo ay wateen ciidamada midowga Afrika ee AMISOM oo ka yimid magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose kuna soo jeeday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa qarax nooca dhulka lagu aaso waxa lagu leegtay duleedka magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose. Dad socota ayaa telefishinka Home Cable u sheegay in qarax uu qabsaday mid ka mid ah gaadiidka AMISOM uuna sababay dhimashada hal askari iyo dhaawac tiro kale. ciidamada AMISOM ayaa marka uu qaraxa dhacay dhowr jiho u riday rasaas taas oo iyana sababtay dhimashada qof la sheegay inuu ka mid ahaa dad beeraley ah oo wadada ku safrayay. Muddo saacada ayuu hakad galay socodka wadada kadib markii ay xirteen ciidamadii AMISOM ee qaraxa loo dhigay. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan waxaana ay sheegeen inay ku gubeen gaadiid ay leeyihiin ciidamada AMISOM isla markaana ay wateen ciidamadaasi ku socdaalayay duleedka magaalada Marka. dhowr jeer ayay Al-Shabaab sidan oo kale wadada u galeen kolonyo ciidamada AMISOM iyo gaadiidkooda oo ku socdaala wadooyinka isku xiran magaalooyinka ay kaga sugan yihiin gobolada dalka Soomaaliya. Cabdinaasir Maxamed, Telefishinka Home Cable, magaalada Muqdisho.